munaasabad baroordiiq ah oo ay isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska taasoo ay ugu muujinayeen dadkii ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay agagaarka Villa Soomaaliya iyo Bar Fiat. kulanka ujeedada caawa halkan la isugu yimid waxa weeye waa baroordiiqdaas oo loo sameeynayo dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dadkii ku halaagsamay maalintii taariikhdu ahayd 21 bishii 2004 dadkii ku dhintay mataqaan qaraxii ka dhacay 21 bishii Febraayo aan soo dhaafnay 2014 ay kamid ahaayeen Dr. Maxamuud Xirsi Cabdulle Indhacase oo ahaa agaasimaha xafiiska wasaaraha iyo General Nuur Maxamed Shirbow oo ahaa taliye ku-xigeenkii amniga qaranka waxaan runtii uga mahadcelinayaa intiinaan isugu timid mataqaana dareenkaas muhiimka ah waxaan kaloo aan jeclaan lahaa inaan ayagana u tacsiiyo dadkii ayaguna ku dhintay mataqaana la socday ayaga kamid ahaa dad fara badan baa runtii oo ciidamada kamid ahaa shacab kamid ahaa dhammaan inaan u tacsiino oon mataqaana u dirno guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo gaar ahaan ehelada ay ka geeriyoodeen ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu naxariis janno ka waraabsho. waxaan halkan ka tacsiinaa oo kala qaraxi meel dhawad ka dhacay Bar Fiat ay ku geeriyoodeen dad aan waxba galabsan ayagana waxaan leenahay eelkii ay ka tageen samar iimaan Allah ka siiyo jannadii firdawsna Allah u sahlo. aad iyo aad baan geerida naxdinta leh uga naxsanahay halkan waxa uu joognaa inaan ku muujino baroordiiqda dadka madaxda oo Soomaalida oo sida xaqdarrada dadka macangagiyaasha ah oo aan qiimaha ku fadhin ay u geysteen murugadaas baan kala qayb galaynaa aad iyo aad baan maaragtay uga tacsiyeynaa qaraabadii iyo dadkii Soomaaliyeed oo halkaas wax ku gaareen meel walba ay joogaan kole inaan baqano maaha inaan siyaasadda gaabino maaha meel walba joogtid waqtigaad markuu galo way socon nafta waxaan sugeynaa waa wadkii iyo saacadii iyo daqiiqadii marka nabadda taa uma joojinayno shaqayntii iyo siyaasadii iyo dawladii aan ku meel gaarnimada gubnay federaalka ee shaqada wanaagsaneed ee waxaan leenahay shaqadiina meesha ka sii wata nabadiid uma joojinayno ayagana waxaan leenahay ilaahay xaq ha tusiyo dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed meel kasta dawladda guudkeeda ka joogto waxaan ognahay in qalbigoodu haday qurbo joogaan iyo hadii kaleba ay si toos ugu xiran yihiin Soomaaliya waxyaabaha ka dhacaya waxaan rajaynaynaa in insha Allah tacaala qaran caalan leh oo xoog leh aan heli doono dadaal badanna in la geliyo waa waajib mas'uuliyiinta Soomaaliyeed laftirkooda inay dadaal badan geliyaan waa waajib waa kula dardaarmaynaa waa guuleysan doonaa insha Allah tacaala halkiisi Soomaalina waxaan leeyahay Soomaaliyay tashta isku tashta cidna idima maqna ceelna idima qodna qarnadiini Soomaaliya saad ku soo ceshan lahaydna ku dadaala aad iyo aad ayaan ugu xunnahay in qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah ee dalkiisa dib ugu laabta ee u halgamaya dalkiisa ee u taagan qarannimadiisa in uu naftiisa ku waayo oo gacan ka xaq daran ay disho maalin walba aad iyo aad ayaan ugu xunnahay kuwa marin habaabiyay oo nagu soo duulo dalalka sheekay yimid wanteed nin wadankiisa ka ah baa wadankanagi ku dhex qaraabanahay Soomaaliyeed wiilashanadu waxaad ogaatiin wadankanaga wiilasha cadcad oo garka idin la joogo almasuur iyo alheblaayo iyo alhebelow la baxay oo calankii islaamka lagu yaqaanay soo qaatay been weeye warkood been waan ka soo horjeesanaynaa ilaahay qaatumada ay diseejiyeen Allah idinka soo celiyo Allah idin soo hanuuniyo waxaan si gaar ah ugu tacsiyeenayaa Maxamuud Indhacase oo muddo aan wada isnaqaanay ilaa iyo dugsiyadeenii sare jaamacaddii gacan ka xaq daran baa dishay Allah u naxariisto ehelkii xaaskii iyo caruurtii uu ka geeriyoodana jannadii Allah ka waraabiyo waxaan caawa wakiil ka ahay ardadii kulliyadii la foole ee Soomaaliya dhammaan meel walba ay joogaan dabcan waa la garanayaa waxani oo waxa garanaya inta la kulantay oo markuu guriyaha ay ka soo kala baxayeen ka soo maaragtay warwaysi guriyaha laftigooda yaa leh yay u kireysan yihiin goormay kireysteen oo ay soo degeen waxa soo dhani waa warar xog ah oo loo baahan yahay in dawladda Soomaaliyeed ay daba gasho hadii aanay dawladda wax ka oran karinna in ay u soo gudbiso shacabka si ay shacabka uga godoodaan oo arinta ay farta ugu fiiqaan hadiiba ay jirto meel aanay dawladdu farta ku fiiqi karin waxaa marka muhiim ah inaan dardaaran yar safarno kulligeen
oon kusoo gabagabaynaya hadalkeena wuxuu yahay dardaarankaasu soomaali way jiraysaa wayna jiri doontaa weligeedna way jiraysaa soomaalinimadana way jiraysaa dhulkuna wuu jirayaa dadka unbaa dhammaanaya generationa imaanaya oo saas u soconaya sharaf iyo karaamad waxaa inoo marka qof kastoo soomaaliya inuu geesinimo ku dhinto askariga soomaaliyeed inuu geesinimo ku dhinto gabadha soomaaliyeed inay geesinimo ku dhimato odaga soomaaliyeed inuu geesinimo ku dhinto madaxweynaha qaranka soomaaliyeed inuu geesinimo ku dhinto in asagoo dalkiisa iyo dadkiisa iyo ummadiisa difaacayo u shaqaynayo inuu dhinto waxaan aaminsanahay wax uga fiican ma jiraan. Yuusuf Garabey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.